السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل wanaagsan daawadayaal qodobada wararka ugu waaweyn ee warqaha TV uu maanta dalka idiga hayana waxa kamid ah dowladda federaalka Soomaaliya oo ku dhawaaqday in lacag malaayiin dollar ah ay u qorshaysay la dagaalanka caabuqa coronavirus ra'iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Kheyre oo ku dhawaaqay in guud ahaanba goobaha waxbarashada ee dalka la xiray maxaa ka jira in dad Yurub ka soo jeeda ay diideen inay ku laabtaan dalalkooda in iska dhiibeen magaalada Muqdisho saraakiil ka yimid waddanka Talyaaniga oo laga baarayo caabuqa corona iyo garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho oo xaalad degdeg ah galay Mareykanka oo markii ugu horeysay bixiyay sirta ciidamada danab ee xoogga dalka Soomaaliya kuwaas oo leh tababar gaar ah iyo xilliga Mareykanka uu gabagabay doono howlihiisa Soomaaliya oo guul weyn gaartay kadib markii ay ku biirtay dalalka dekedaha adduunka iyo maamulka Puntland oo dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ugu yeeray shirweyne ka dhaca Garowe iyo dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo lagu eedeeyay gabagabada shirki Garowe ka dhacay waa 18 bisha saddexaad maalinimo Arbaca sanadka 2020 intaas waa qodobada wararka ugu waaweyn ee warqaha TV uu dalka idiga hayo haday ku tahay daawada markii kuugu horeysay fadlan subscribe oo furaga baleelka si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee hela wararkii warbixinada warqaad halkan idin soo geliyo ayna ku bilaaban dalka ayaa waxa uu ku jira xaalad kale kadib markii caabuqa corona uu soo gaaray qofkii ugu horeysay ee kiiska caabuqa corona ayay dowladda federaalka Soomaaliya xilli hore xaqiijisay ra'iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Kheyre ayaa shaaciyay in dowladda Soomaaliya ay 5 milyan oo dollarka Mareykanka u qoondeysay la tacaalidda caabuqa COVID-19 dhammaanba dalka oo dhan sidoo kale ra'iisul wasaaraha ayaa ku dhawaaqay in la xiray dhammaan goobaha waxbarashada sida dugsiyada iyo jaamacadaha laga bilaabo Arbacada maanta iyadoo ay xirnaan doonaan muddo 15 maalin ah si looga hortago caabuqan corona inuu sii faafo ra'iisul wasaaraha dalka ayaa muwaadiniinta faray in la joojiyo kulamada waaweyn iyo isku soo baxyada fagaarayaasha dowladda ayaa ku howla dhameystirka xarumo lagu karantiilayo laguna hubinayo dadka looga shakiyo cudurkan halka isbitaalka Martini loo asteeyay in lagu daaweeyo bukaanada uu cudurkan haleelo allama qadare ra'iisul wasaaraha ayaa ganacsatada Soomaaliyeed kala hadlay saameynta uu dhaqaalaha dalka ku yeelan karo caabuqan iyo sida looga hortagi karo haddaba waxaan idin soo gudbinayaa qayb kamid ah fariintii ra'iisul wasaaraha dalka Xasan Cali Kheyre uu jeediyay bismillaahirrahmaanirrahiim sida aad ka maqasheen shalay hay'adaha caafimaadka dalka waxay xaqiijiyeen in wadanka laga helay kiiskii ugu horeeyay ee cudurka loo yaqaan coronavirus waxaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ugu baaqaya inaanay walaacin balse ay ku dadaalaan inay muujiyaan foojignaan dheeraad ah dawladdu waxay diyaarisay waxyaabaha muhiimka u ah sidii looga hortagi lahaa cudurkan iyo qaabkii aan u wajihi lahayn xaaladda ka dhalan karta dawladdu waxay hirgelinaysaa xarumo aan ugu yeeri doono xarumaha badqabka oo ah xarumo aan rabno in lagu haayo dadka aan isleenahay waa in la karantiilaa inta la hubinayo caafimaadkooda ilaa hadda waxaan rajaynaynaa inaan sameeyno ugu yaraan 2 ama 3 xarumood sidoo kale waxaan rajaynaynaa in isbitaal Martini aan si gaar ah uga dhigno meeshii lagu daaweyn lahaa bukaamada waxa ku socota shaqo qalabayn iyo maalgelin si uu ula tacaali karo isbitaalkaas dhibaatooyinka ka iman kara cudurkaas haddaba si aan ula tacaalno xaaladaha ka dhalan kara cudurkan loogana hortago waxaan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed dhammaan meel walba ay joogaan inay raacaan talooyinka ay bixinayso wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha dawladda ee hawshan ku howlan si marka aan uga hortagno cudurkan waxaan caawa halkan shacabka Soomaaliyeed u sheegaynaa in la xiro iskuulada iyo jaamacadaha laga bilaabo maalinta bari ah oo ay xirnaadaan 15 maalmood kadibna ay ka sugaan warbixin dheeraad ah dawladda Soomaaliyeed sidoo kale waxaan soo jeedinaynaa in la joojiyo dhammaan kulamada waaweyn xafladaha iyo isku soo baxyada fagaarayaasha si looga hortago cudurkan foojignaantana aan u xoojino dawladdu waxay kala shaqeynaysaa arrinkan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada si aan u muujino wax ka qabadka cudurkan
waxay xukuumaddu maantay meel gaar ah dhigtay $5 milyan oo ah lacagtii ugu horreysay oo u qoondeyno oo lagula tacaali doono cudurkan. lacagtaas waxaa xooga qaban doonaa qof walba oo Soomaaliyeed oo dhibaato ka soo gaarta cudurkan meel walba oo ay dalka ka joogaan haddii Ilaahay yiraahdo. sidoo kale waxaan wada hadallo kula jirnaa hay'adaha dhaqaalaha adduunka si aan uga helno caawinaadii looga hortagi lahaa cudurkan dalka Soomaaliyeed oo dhan. waxaa kaloon sidoo kale la fariisanay oo aan talooyin isweydaarsanay ganacsatada Soomaaliyeed sidii iyadana aanu xaqiijin lahayn saameynta cudurkani uu ku yeelan karo dhaqaalaha oo aan uga hortagi lahayn. dhinaca kalena 4 qof oo Soomaaliya oo la sheegay inay yihiin saraakiil tababar loogu diray dalka Talyaaniga ayaa ka soo degay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho. Talyaaniga ayaa ka mid ah dalalka Yurub ee sida weyn u aafeeyay cudurkan coronavirus, waxaana uu cudurka dalkaas ugu geeriyooday kumanaan kun. shaqaalaha wasaaradda caafimaadka ayaa la sheegay inay la wareegeen saraakiisha iyagoo kadibna geeyay goob lagu karatiilayo dadkaas inta xaaladooda caafimaad laga baarayo. saraakiisha ka soo laabtay Talyaaniga ayaa ka mid ahaa rakaab saarnaa diyuuradda Ethiopian Airlines duulimaadkeedii maanta ee Addis Ababa iyo Muqdisho, sida ay sheegeen howlwadeenno ka tirsan kuwa diyaaradaha garoonka diyaaradaha Muqdisho. maalmo ka hor ayay ahayd markii dowladda Soomaaliya ay shaacisay inay joojisay duulimaadyada iyo dadka ka imaanaya 4 dal oo uu ku jiro Talyaaniga sabab la xiriira cudurka coronavirus oo si weyn uga faafay. laakiin dowladda waxaa ku qasban in aysan dalka ka hor istaagin muwaadiniinta dalkeeda ee aan lahayn meel ay ciirsadaan. taas ayaana la aaminsan yahay inay ka dambayso in dadkan cusub ee ka yimid Talyaaniga magaalada Muqdisho ay yimaadaan. dhinaca kalena warar ay faafinayso saxaafadda gudaha dalka ayaa waxa ay sheegayaan in magaalada Muqdisho ay iska dhiibeen 7 nin oo Talyaaniga. 7dan muwaadin ee Talyaani oo Soomaaliya howlo gaar u joogay ayaa lagu waday inay dalkooda dib ugu noqdaan kadib markii uu ka dhacay dalkugalkii ay dalka ay ku joogeen. inkastoo aan la faahfaahin nooca shaqo ay u joogeen magaalada Muqdisho, hase ahaatee waxaa loo badinayaa inay ka mid yihiin shaqaalaha shisheeye ee hadda dalka ku sugan. si kastaba waxaa lagu soo waramayaa inay waaxda socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya ka codsadeen dowladda Soomaaliya inaysan ku celin waddanka Talyaaniga, balse taa beddelkeeda dalkugalka loo kordhiyo maadaama waddanka Talyaaniga uu haatan si baan ugu jiro caabuqan coronavirus ee adduunka saameeyay. dowladda federaalka ayaa la sheegay inay aqbashay codsigooda, waxaana loo kordhiyay fiisihii maadaama ay Soomaaliya ku sugnaayeen waqti ka badan 14 maalin. waxaa horey u dhacday inay 35 shaqaale oo Talyaani ahay sidaan oo kale Itoobiya uga codsadeen in fiisaha loo kordhiyo sababaha inay dalkooda dib ugu laaban karin. warqaha TV aad nagala socotaan wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya inay ku guda jirnaayeen. Soomaaliya ayaa ku biiraysa liiska dalalka dekedaha leh markii ugu horeysay kadib markii xukuumadda Muqdisho ay horumarkii ugu dambeysay ka sameysay nambarka maraakiibta adduunka. talaabada lagu horumarinayo nambarka maba koodhka ayaa u ogolaanaya dalka inuu noqdo ama uu qaado mas'uuliyadda si lamida sida dalal kale ee caalamka. waxaana calankeena uu ku dalbaba doonaa maraakiibta iyadoo dekedaha dalka ee adduunka ka muuqan doonaan. sidoo kale si cad ayaa adduunka dalkeena ugu aqoonsan doonaa dalxeebeed. arrintan ayaa lagu dhawaaqay toddobaadkan kadib markii 6 sano oo ay dadaalkan waday Soomaaliya. waxaana arrintan kaalin ka geystay hay-adda badaha caalamiga ee magaceeda loo soo gaabiyo IMO iyo xafiiska qaramada midoobay qaabilsan Soomaaliya UNSO. nambarka dhoofita ee Soomaaliya sameysay ayaa hadda mari doona marxaladii ugu dambeysay, waxaana la horgeey doonaa baarlamaanka Soomaaliya si looga dhigo sharci qaran oo ay Soomaaliya leedahay, taas oo kaalin ka geysanaysa in la hubiyo habsami socodka arrintan iyo in uu soo kordhiyo fursadaha dhaqaale ee dalka uu helayo. si kastaba nambarkan dhoofita ayaa ah qaab dhismeedka waddan si uu u ansixiyo dhammaan heshiisyada ay hay-adda badaha caalamiga ee IMO gasho, taas oo qaranka u saamaxaysa inuu ka soo baxo waajibaadkiisa si waafaqsan tilmaamaha hay-addan IMO iyo inuu guto waajibaadkiisa sida calanka, dekada iyo sidoo kale gobolka xeebta. Soomaaliya ayaa dadaal u gashay inay hesho koorkan maraakiibta caalamka, waxaana sanadkii 2014 ee hay-adda badaha caalamka ee IMO ee badaha ay ka dalbatay in dib u eegis lagu sameeyo xeerarkii hore ee badda ee 1959. dalkeena ayaa ka soo baxayay in ka badan 20 sano oo dagaalo sokeeya, waxaana la isku dayay dadaalo caalami oo lagu xakameynayo laguna yareynayo falalka burcadbadeednimada ee ka dhaca xeebaha Soomaaliya. heerkan dhoofinta
ayaa sidoo kale Soomaaliya awood u siinaya inay maamusho badaheeda oo ay hadda ay buux dhaafiyeen maraakiib shisheeye kuwaas oo ka qowleysta kheyraadka baddeena. hay-adaha IMO iyo UNSOM ayaa sheegay in hadda la tababarayo koox Soomaaliya kuwaas oo baranaya dhinaca sharciga iyo farsamada badda. horaantii bishan wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Soomaaliya Maryam Aweys Jaamac ayaa koorka badaha ka heshay David Muli isku duwaha gobolka ee hay-adda badaha adduunka ee IMO ee bariga iyo sidoo kale koonfurta Afrika. Mr. Muli wuxuu qiray in Soomaaliya ay ka go'an tahay xaqiijinta ammaanka maraakiibta, waxaana uu ballan qaaday in hay-adiisa ay sii wadi doonto taageerada ay siiso horumarinta iyo sidoo kale kheyraadka badda Soomaaliya. Soomaaliya waxay leedahay xeebta ugu dheer Afrika, waana meesha juqraafi ahaan ugu weyn Afrika. waxay kaloo ay leedahay dekado ganacsi iyo kuwa kaloo yaryar. dekadaha Soomaaliya waxay ku kala yaalaan magaalooyinka Boosaaso, Muqdisho, Baraawe, Berbera, Marka, Kismaayo iyo dekado kaloo yaryar oo ku yaala qaybo kamid ah magaalooyinka dalka. warqaa TV aad nagala socotaan qaybihii dhexe ee wararka iyo warbixinada aan Soomaaliya idiga hayno. Mareykanka waxa uu shaaciyay xilliga ay ciidamada Soomaaliya awood u yeelan doonaan inay guud ahaanba Soomaaliya gacanta ku dhigaan iyo xilliga ay Soomaaliya howlahooda ka soo gabagabay doonaan. wargeyska Military Times ayaa qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay howlgalka AFRICOM ee Mareykanka uu ka wada Soomaaliya inuu dhammaan doono 2027 markaas oo ciidamada danab oo kuwa xooga Soomaaliya awood u yeelan doonaan inay ammaanka Soomaaliya la wareegaan. taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaana rajaynaynin in howlgalka lagu dhisayo ciidamada xooga Soomaaliya ee danab loo yaqaan uusan xiliyadan dhow dhamaan doonin. xilli waaxda arrimaha difaaca ee Mareykanka ee Pentagon-ka culays xoogan lagu saarayo hagaajinta joogitaanka ciidamada dalalka Afrika iyo meelo kale. AFRICOM waxay saadaalinaysaa inay sii wadi doonto horumarinta howlgalka loogu yeeray hilaaca guusha ee Soomaaliya ilaa iyo 2027 si ciidamada danab ee Soomaaliya awood ugu yeeshaan inay ka adkaadaan kooxda shabaab ee xiriirka la Al-Qaacida. wargeyska ayaa sheegaya in shabaabka ka dagaalamaya Soomaaliya ay tiro ahaan u dhaxeeyaan 5,000 ilaa iyo 7,000 oo maleeshiyada. ciidamada danab waa ciidamo karti leh gaar ahaan gudaha Soomaaliya kuwa ku sugan. ku-xigeenka taliska AFRICOM ee dhinaca howlgallada ciidamada Brigadier General Miguel Castellanos ayaa u sheegay wargeyska Military Times isagoo hadalkiisa sii wada ayaa waxa uu yiri waxaan u maleynayaa howlgalkeeni maalinba maalinta ka dambaysa askarta danab inay aad uga caawinayso inay helaan khibrad ayna arkaan xirfadda ciidamadeena Mareykanka. tan iyo markii ciidamada danab la aasaasay 2013 ciidamadan ayaa laga kordhiyay tiradii ahaayeen oo ahayd 150 waxaana laga dhigay 800 ilaa 1,000 askari. sargaalka Mareykanka u hadlay waxa uu sheegay in hadafku uu yahay in ciidamada danab laga dhigo ilaa 3,000 oo askari. Mareykanka ayaa sidoo kale loo ogaanaya inuu go'aan ka gaaro cidda ka mid noqonaysa ciidamada gaarka u tababaran ee danab sida wargeysku uu ku waramayo, waxaana arrintaa u sameeya hay'ad gaar ah. si kastaba kadib sanado tababara oo ciidamada Mareykanka siinayeen xogaga danab ayaa diyaar u ah inay sameeyaan howlgal iskooda, waxaana uu sargaalkan u hadlay Mareykanka uu sheegay in ciidamadan ay leeyihiin awood aad u sareysa. si kastaba ciidamada xooga dalka ayaa hadda howlgallo waaweyn ka wada shabeelooyinka. howlgalkaas oo lagu magac daray badbaado ayay ciidamada xooga dalka ku qabsadeen deegaankii ugu dambeeyay oo ah Janaale oo muddo ka badan 15 sano ay kooxda shabaab haysteen. Mareykanka oo saldhig ciidan ku leh Soomaaliya ayaa kordhiyay weerarada uu ku qaadayo shabaab, waxaana xukuumadda Washington sheegtay in dowladda Soomaaliya ay ka caawinayso sidii kooxdaasi dalka looga saari lahaa. waa xagaag daawadayaal qaybihii dambe ee barnaamijka wararka iyo warbixinada warqaa TV ayaynu ku guda jirnaaye. maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa waxa uu ku dhawaaqay inay martigeli doonaan shirweyne loo qabanayo dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo sidoo kale maamul goboleedyada dalka. madaxweynaha maamulkaasi Puntland Siciid Cabdulaahi Dani oo soo xiriyay shirweynihii Puntland kaas oo muddo 3 maalin ka soconaya magaalada Garowe ayaa shaaca ka qaaday inuu magaalada caasimada u ah Puntland uu ku casuumayo madaxda dowladda dhexe iyo sidoo kale maamul goboleedyada. madaxweyne Dani oo dhamaadkii shirka hadal jeedinayay ayaa si cad uga rogay inay aqbaleen dhammaan talooyinkii loo soo jeediyay, laakiin laga doonayo in kulankan aayaha Soomaaliya looga tashanayo ee Garowe uu u dhaxay doono dowladda dhexe iyo sidoo kale maamul goboleedyada, waxaana codkiisa kamid ahaa. waxaan ku dhawaaqayaa gogol shir aan u qabano dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah inay isugu yimaadaan magaalada Garowe oo aayaha Soomaaliya iyo marxaladda cusub
cakiran ay u cirbixiyaan. waan rajaynayaa in maamulada iyo dowladaha la doortay ay ku filan yihiin marxaladda adag Soomaaliya inay ka gudbiyaan waa hadday la tashadaan dadkooda. annagu Puntland waxaan ballan qaadayaa taladiinaan geyn doonaa goboshaas marka la yimaado. waxaan ka rajaynayaa dadka kaloo mas-uuliyiinta ana talooyinka dadkooda inay la yimaadaan. haddii dadka taladooda la maqlo turxaan badan oo hadda jirta iyo madmadowga ay baxaysaa. dalkan qof iyo koox waa ka weya. waxa kaliya lagu dhaqi karaa waa wada jir, isdhagaysi, ismaqal, isku dhibrin iyo in tala midaysan la wada qaato. waxaan aad ugu baaqayaa in dalka reer Puntland ay hormuud ugu noqdaan ummadda Soomaaliyeed, inay badbaadiyaan, inay mustaqbalkooda ka shaqeeyaan, inay maaragtay taladoodana ay meeshaas geeyaan. kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha maamulka ee Puntland. lama oga haddii dowladda federaalka Soomaaliya ay aqbali doonto codsiga iyo soo jeedinta maamulka Puntland xilli dowladda dhexe ay marar badan Puntland ugu yeertay gaar ahaan madaxweyne Dani inuu ka soo dego magaalada Muqdisho isla mar ahaantaana dowladda ay wada hadal yeeshaan. wararka iyo warbixinada arrimaha ka soo korana dib ayaan idinla socodsiin doonaa insha Allah. laakiin warkeennii intaas ayaan ku soo gabagabay doonaa. warka la mid ah insha Allah ay tahay ku kulmi doono. waxaan idinka tagayaa sida ay nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.